وكاغا مهدنقيا حقت كوبنات لو داغتي golaha مدن وزير la xisaabtanku wuxuu ku bilaaban doonaa su'aalo toos ah oo ka yimaada golaha iyo shirgudoonkaba su'aalahana adiga laga rabaa inaad ka jawaabtid koor intaanan u gudbin golaha mudane wasiir waxaan rabaa inaan ogaado wax lagu wargeliyay warbaahinta dawladda Puntland inay ka soo qayb galaan kulanka golaha kugu weeliyaan maxaa sababay inay mawaan adigoo maasan gudoomiye telefishinka wuxuu ka mid yahay wasaaraddu ka mid yahay agaasimaha hadeer u magacaaban telefishinkuna wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada saxaafadda kama soo jeedo intii la hoos keenay telefishinku toos u hoos yimid wasaaradana wasiir ku-xigeen baa u asaystaa inuu maartay TV-ga si gaar ah ugu shaqaynayay warqadda qoraalka aan helayna waxay ahayd wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka xogayu kulamo soo wadaagin miyaa in loo baahan yahay warbaahinta Puntland ee madax xogay ka jawaab saasha xogayaha hadalkiina dhex maray wuxuu ahaa TV wasaaraddu ka mid yahay shaqadana waa looga way aragsan yahay warbaahintana kama soo jeedo taas oo ah agaasimo warbaahinta kama soo jeedo warbaahinta kama soo jeedo haddaanu ka soo jeedin maxaa loogu magacaabay xilliga uu joogay shaqadana waa xilli aad u kooban xilligaana wasiir ku-xigeen baa la shaqaynayay oo uga sareeyay shaqada uu gacanta ku hayay qoraalkiinana kuma jirin aad ii soo dirteen mudane wasiir taas waxaan u qaadanaynaa inaad ka hor timi faritaankii goluhu uu ku faray in warbaahinta dawladda Puntland raadioga telefishinku ay golaha hor yimaadaan arrintaana waajibaad buu ka qaadan doonaa baarlamaanka waana maasantay insha Allah su'aaleen aynu bilaabin doonaa wax yar baan rabaa mudanayaasha sharafta badan xasuusiyo mudanayaal akademiyadda Puntland ee hidiya dhaqanka oo hay'ad madax bannaan ma aha qayb ka tirsan wasaaradda waxayna ku dhisan tahay xeerka akademiyadda Puntland ee hidiya dhaqanka xeerkeedina way horyaal sidaa daraadeed waa hay'ad wasaaradda ka madax bannaan xeerka intisaxeereedka goobaha taariikhiga ah ee goluhu la horkeenay wasiiratul goluhu yaal xeerka goluhu waa celiyay xeerkaasi wuxuu ka hor imanayay xeerka akademiyadda Puntland ee hidiya dhaqanka sidaa daraadeed baa loo celiyay labada xeerna haddii kale hay'adda waxa weeye in digreeta madaxweyne soo codsado in hay'adda la baabi'iyo marka hore in hay'adda la baabi'iyo madaxweyne soo codsado goluhu ay aqlabiyad ku meel mariyaan in hay'adda la baabi'iyo kadibna aad xeerka aad halka ka soo dhistaan habraaca shaqada in loo maro weeye marnaba marka hay'addani hadda siday u dhisan tahay waa hay'ad madax bannaan oo ka mid ah hay'adaha dawladda Puntland ay leedahay mudanayaal waxa aan idinku soo wareejinayaa insha Allah billahi kariim su'aalihii inaan guda galno axmed oo hal qoro mudanayaasha si ay isu qoraan cidii doonaysa inay ka qayb qaadato inay su'aalo weydiiyaan wasiirka soo dhawaada mudanayaal waxaa jiray khilaaf soo noqnoqonayay oo labada mas'uul oo dawladda ugu sareeya khilaafkaasi warbaahinta dawladda dhexdhexaad kama ay noqon tusaale ahaan Allahu naxariistay markuu dhintay gudoomiye Axmed Muuse qarxii lagu qarxiyay gaalkacyo madaxweyne ku-xigeenku waa u tacsiyeeyay warbaahinta dawladdana waa la gashay daqiiqado ka bacdina waa laga saaray waxaa kaloo jiray digreetooyin oo madaxweynuhu soo saaray ku-xigeenku oromaya waa saxan yihiin iyo waa sax waa sharci kaleeto iyo barnaamij kaleeto laakiin intay soo gelisay bay haddana daqiiqo ka bacdi ka saarnay wasiirku ma iga jawaabi karaa qodobka ay cuskadeen iyo xeerka ay cuskadeen iyo qawaaniinta sharciga ay cuskadeen oo labada mas'uul ayaan u sinayn gudoomiyaad baad u mahadsan tahay su'aasha ugu horeysa xildhibaan Faysal ahaa oo ay ku jirtay khilaafkii labada mas'uul iyo digreetooyinkii kala dambeeyay xilligaas telefishinka iyo raadiyaha waxa uu xil saaraa wasiir ku-xigeenka hadaad iga ogolaato waxaan jeclaan lahaa inaad su'aasha ku xawileyso soo dhawaad mudane wasiir bismillahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha baarlamaanka mudanayaasha baarlamaanka xoghaynta saxaafadda iyo guud ahaan marjarafta kale ee baarlamaanka dhammaantiinba assalaamu calaykum mudane xildhibaan Faysal waxa uu na weydiiyay laba su'aalood oo midii ugu horeysay aan filayo in ay ahayd gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Allah u naxariisto
informationkii iyo wararkii ku saabsanaa iyo qaabkii maxaa la yidhaahdaa wararka loo tabinayay waxaan rabaa inaan golaha u sheego wasaaradda warfaafinta telefishinka waxaa la hoosgeeyey bishii 6/26/2021 intaa wixii ka horreysay telefishinku waxa uu ahaa institution ka madax bannaan wasaaradda warfaafinta marka kama jawaabi karno wixii intaa ka horreeyay oo mas-uuliyadda telefishinku annaga markaa nama hoos joogin laakiin intaa wixii ka dambeeyey annaga ama wasaaradda ayuu hoos joogay taa halkaasaan uga baxayaa midda labaad oo mudane faysal uu yidhi markii khilaafku uu jiray digreetooyin ama cadaalad looma samayn waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka qirto oo aan ka sheego agaasimaha guud ee telefishinka iyo aniguba in aan ka wada shaqaynaynay oo aan soo gudbinay dhammaan digreetooyinkii labada madaxweyne Siciid iyo madaxweyne Axmed maxaa la yiraahdaa ay soo dirayeen waxaan hubaa oo aan qirayaa in ilaa 4 digreeto oo xasuusintayda ay ka mid ahayd digreetadii ugu horreeyay madaxweyne Axmed oo ku magacaabay gobolka Mudug tii labaad oo degmada Laas Qoray tii ku xigtay ee ahayd agaasimayaasha guud intaba page-ka telefishinka lagu soo daabacay waxaan kaloo hubaa oo aan qirayaa safaradii madaxweyne Axmed oo markaas ku sima ahaa iyagana in la soo daayay intaas ayaan kaga baxayaa mudane gudoomiye waad mahadsantahay mudane wasiir waa ku mahadsanta jawaabtaada laakiin su'aalaha ka dhashay wasiir marka waxaan rabaa inaad hal mar ku noqoto sidoo xildhibaanku sheegay wareegtooyinka waa daabacdeen buu laakiin waa laga saaray su'aasha jawaabteeda laga rabaa taa weeye midda labaad wasiiradda waxaad cadaysay in muddo kooban telefishinku idinka gacantiina ku jiray intii hore uu idinka madax bannaanaa maadaama idan su'aalaha xilliga la rabo laga weydiiyo aydan ka jawaabi karayn la idinna faray inaad keentaan soo looma arkayo inaad raad gadanaysaan haddaa keeni weydeen oo su'aalaha aydan ka jawaabi karin la rabay in la weydiiyo iyaga aydan maanta ka jawaabi karayn soo lama arkayo hadda su'aalaha muhiimka ah inaad ka raad gadanaysaan ka horreegaysaan kusoo dhaw wasiir mudane gudoomiye agaasimaha guud ee telefishinka ee hadda jooga waxa uu shaqada hayay qiyaasta in ku dhow 2 bilood iyo bar telefishinka waxa jiray acting agaasimo guud baa jiray agaasimihii guud actingkuna kulay sida aan hadda ogahay baryahan ma joogo marka sida daraadeed ifan haddii agaasimaha guud ee TV-gu maanta uu nala joogi lahaa su'aalihii arrimihii ka horreeyay ku biritaankii telefishinka ee wasaaradda waxa laga yaabaa inuusan xog ka hayn oo anagu aan uga xoogaalsanayn arrinta kale mudane gudoomiye aad tiri waa laga saaray waad ogtahay dalkan dowladda Puntland xildhibaanka su'aashiisay ku jirtay wuxuu yiri inta la geliyay baa laga saaray marka xildhibaanka rabaa inuu jawaabto aad ka qanacsan way iga raali ahaada mudane xildhibaan digreete kasta oo ama warqad kasta ama war kasta oo page-ka telefishinka soo gala wuxuu ku jiraa waqti mucayan waxa laga yaabaa inay jiraan ama ay dhici karto warar ku jira daqiiqado warar ku jira saacado warar ku jira qiyaasta 24 saac waxa suuragal ah kuwaas inay ka mid ahaayeen wararka page-ku ugu talagalay waqti mucayan inay ku jiraan waxa kale oo jira duruufo guud oo dalka ka jira oo u baahan marka media laga hadlayo in saxaafadu ay u kantaroosho sida media caalamku ugu talagalay mudane wasiir waxaan ku su'aalayaa 2 su'aalood xeerka isgaarsiinta dowladda Puntland qodobkii 13aad wuxuu leeyahay wada tashi wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta sanadkii 2 jeer shirka ma qabataan hadaa qaban wada muxuu qabsoomi waayay maxaa soo hortaagan su'aasha labaad waxa weeye wasiir saan wada ogsoonahay telefishinka Puntland iyo raadiyaha telefishinka waxa laga xukumaa London receiverkiisa maxaad u soo celin weydeen oo caasimadda Puntland u keenay weydeen taana waa su'aasha labaad waana maastay wasiir waa maasanta gudoomiye xildhibaan Sharmaarka su'aashiisa waxay ahayd xeerka isgaarsiinta waxa ku jirta inaad shirarka qaadataan shirkadaha isgaarsiinta ma la qabtaa shirarka intii muddada yareed anigu aan joogay shirarku 2 siyaabood bay ku dhacaan sideedaba
shirar farsamo ku yimaado oo loo baahdo iyo shirar la sii qorsheeyo sanadka gudihiisa oo ama laba ha ahaadeen ama mid ha ahaadeen intii laga gaari karo shirar farsamo ku yimi waa ay qabsoomeen intii anigu aan imi kuwa kalena waa aanu u ballansannahay inaanu si guud isugu nimaadno si wixii jira oo maartay qorshayaashii wasaaradda uga dirgsanaa xeerarkii isgaarsiinta iyo caqabadaha ay iyagu la kulmayaan shirkadaha isgaarsiinta iyo waxyaabaha ay uga baahan yihiin oo qorshayaashooda ku jira looga wada hadlo la isu update gareeyo kuwa qorshaysanina waa jiraan su'aasha ku xigta taas oo labaad oo isla xisaabtanka waxay ahayd receiver-ka TV-ga maxaad u keeni weydeen Puntland sida aynu la soconno TV-ga meesha uu ku yaalo waa London TV-ga kaliya kuma yaalo xaruntiisa telefishinada Soomaaliya laga leeyahay dhammaantood ama badankoodu xaruntaas ay ku yaalaan isku meel bayna ku yaalaan sababo khasbaya ayaa jira inuu TV-gu mar walba online ahaado internetka iyo korontada labadeenuba ma noqon karaan duruufaha aynu ku jirnaa awgeed ama farsamaha ahaato ama dhaqaalaha ahaato mid kuwa joogta ah had iyo jeer oo daqiiqad kasta joogta ah sida awgeed waxaa loo doorbiday intii cilad farsamo ay ku dhici lahayd oo damage gaari lahaa ama shaqo loo baahnaa iyadoo saacadda ay socoto ay istaagi lahayd meel internetka iyo korontadu ay saacad walba joogta yihiin inuu TV-gu joogo ilaa iyo inta laga helayo garanti ah in uu system backup ah oo lagu kalsoon yahay internetka iyo korontadaba loo helayo sababtaas ayaa khasbaysa inaan la keeni karin su-aasheedu aniga waxay la xiriirtaa warbaahinta Puntland waxaa lagu sheegaa TV-ga iyo raadiyaha Puntland baa la yiraahdaa waagii hore la aasaasayna sidaas buu ahaa haddii aanan khaldanayn bulshadeenuna bulsho access u wada heli kadhay inay TV daawato waa ka badan tahay oo dhul ballaaran bay ku nooshahay warkuna inuu gaaraa la rabaa oo warku wada gaaro maxaa raadiyihii Puntland u shaqayn la'yahay oo hortaagan ilaa iyo muddada la joogo in dawladdu ay uga shaqaysiin weydo raadiyihii Puntland sidii la rabay si uu bulshada u wada gaaro aad iyo aad baa u mahadsantihiin xildhibaan Fuaad muxuu raadiyuhu u shaqayn waayay raadiyaha iyo muxuu ahaayay TV-ga isku mar baa la bilaabay maadaama wasiir ku-xigeenka Cabdisalaan uu muddo telefishinka iyo raadiyaha oo kaliya u astaysnaa inuu la shaqeeyo 6 bilood ugu dambeysay gudoomiye waxaan jeclaan lahaa su'aashaan Cabdisalaan ku xawil mudane wasiir ku soo dhawo mudane gudoomiye aad baad u mahadsan tahay mudane xildhibaan Fuaad su'aashiisii haddaan ka jawaabo waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo 2019 sidaan halkan ka cadeeyay telefishinka iyo raadiyogu intii u dhaxaysay gaabkaas ilaa iyo bishii lixaad ee sanadkii la soo dhaafay wasaaradda iyo telefishinku isku mahayeen hoos jireen sidaa daraadeed arrintaas oo jirta annagoo ogsoon ayaan isu xilqaanay in aan idaacadaha iyo telefishinka dowladda Puntland ka wasaarad ahaan aan wax ka qabano u noqon maayo wixii muddada ka horeysay laakiin waxaanu qabanay markii ugu horeysay magaalada Garowe ay yeelato idaacad telefishinka ama studio magaalada Garowe ku dhex taala waxa samaystay wasaaradda annagoon dhaqaale u hayn annagoon lacag u hayn annagoon waxba u awoodin ayaan shakhsiyan anigu waxaan ogaaday wasaaradda waxbarashadu inay hayso idaacad ayadoo ay leedahay oo aan shaqayn waxaan u tagay wasiirka waxbarashada waxaan ka codsaday in uu idaacadaas u taala wasaaradda waxbarashada uu ku wareejiyo wasaaradda warfaafinta waxaan idaacadaas geynay xarunta studio idaacadda iyo telefishinka ee Garowe 2019 ilaa hadda way shaqaysaa waxa kale oo xusud mudan markii ugu horeysay isla sanadkaas degmada Baran ee gobolka Sanaag oo duruufo gaar ah oo xagga media la dhacaysay iyadana in aan idaacad geynay waxa xusud mudan magaalada Gaalkacyo magaalada Buurtinle labada magaalo isla sanadkaas 19kii in aan tagay idaacadda Gaalkacyo oo duruufo gaar ah ay ka jireen markii ugu horeysayna aan aniga iyo wasaaradduba aanu tagnay iyo wasiirada kale aanu u geynay soolaro iyo qalab kale
oo awoodeeda aanan lahayn isla markaasina isku tashiga reer gaalkacyo idaacaddaas ay gacanta muddo ugu hayeen wasaaraddu ay ku dadaashay shaqaalaha raadiyahaas in bayroolka dowladda lagu daro maantana ay ku jiraan 19 ilaa iyo haddana ay shaqaynayaan ku dhowaadna ay ka howlgalaan 13 shaqaale oo runtii asaaskeedana aan ku ammaanayo maxaa la yidhaahdaa reer gaalkacyo magaalada boosaaso oo aan marnaba yeelan idaacad dowladdu ay leedahay ama iyo television xarun televishineed markii ugu horeysay waxay ka hirgeli doontaa insha Allah bilaha soo socda wasaaraddu guri bay ku lahayd qol weyn oo studio ah loogu talagalayna uu ku jiro gurigaas waxaanu dib u habeyn ku sameynay muddo iminka laga joogo qiyaasta bil iyo bar 2 bil wali wax yar baa u dhiman waxa ku yaala studio televisionka idaacadda waxa ku yaala xafiiskii idaacadda iyo televisionka waa markii ugu horeysay baan iyaduna sameyn doonaa waxa xusid mudan haddii la yiraahdo guud ahaan 9 gobol idaacadaha la gaarsiiyo waad ogtihiin oo rag fara badan oo xildhibaan mudanayaal ah oo halkan jooga oo khabiir ah saxaafadana aad u yaqaan ayaa golaha ila jooga wax loo baahan yahay FM in la sameeyo magaalo kasta waxa loo baahan yahay short wave in la sameeyo oo la rabo markaa inuu isku xiro guud ahaan dalka iska dhan labadaas qaab marka la rabo in la sameeyo anagu marka waxaan rabnaa si tartiib inaan wax u sameeyno idaacada ma haysano duruufaha dhaqaale xumada iyo aafooyinkan dunida iyo Puntland ka jirana waad ogtihiin dadaalkaas aanu sameeynay inta yar ee dhiman insha Allah dhawaan ayay mira dhali doonaan waa mahadsan yahay xildhibaan Faad salaamka bacdi su'aashaydu waxay la xiriirtaa xeerka afka Soomaaliga oo hirgelintiisa iyo yani qodobo badan ee halkan ku qoran yihiin oo qoraya in la hirgeliyo af Soomaaliga qodobadaas waxaa ka mid ah qodobka 3aad faqradiisa 4aad qodobka 7aad faqradiisa 3aad iyo qodobka 11aad faqradiisa 2aad iyo faqradiisa 3aad kulligood waxay ka hadlayaan sidii loo hirgelin lahaa ama loo xoojin lahaa afka Soomaaliga oo afka hooyo ah qodobka 3aad faqradiisa waxay ka hadlaysaa adeegsiga waxbarashada in waxbarashada loo adeegsado wali waxbarashada asaasiga ah afka Soomaaliga in lagu qaato qodobka 7aad faqradiisa 3aadna waxay ka hadlaysaa inay waajib tahay in af Soomaaliga loo adeegsado waxbarashada qodobka 11aad faqradiisa 2aad iyo faqradiisa 3aadna waxay ka hadlayaan jaamacadaha si loo tayeeyo afka Soomaaliga in jaamacadaha lagu dhigo maadada afka Soomaaliga mudane wasiir xeerarkaas ku qoran afka Soomaaliga xeerka afka Soomaaliga ama qodobada ku qoran ma fuleen waxa ka hirgalay hadaan fuleen maxay u fuli waayeen su'aashayda labaad waxay la xiriirtaa xeerka dalxiiska waxaa la dhaqan geliyay kalfadhiga ka horeeyay saan filayo waxaana muuqata hadda aad warbixinteena ku darteen ina shirkado ay la diiwaan geliyay shaqada dalxiis oo hadda markaa shirkadahaas u qabanayaan oo socota oo shaqaynaysa ma jirtaa goobaheesa ka socda dalxiisku meelaha loo tago oo dalka hadda u diyaarsan in la dalxiiso su'aashada 3aad waxay ku saabsan tahay xeerka isgaarsiinta waxa ku lifaaqan khidmadihii laga qaadayay shirkadaha isgaarsiinta oo lifaaq baa jira khidmadahaasu soo xiroodaan wasaaraddu maxay ku leedahay khidmadahaas percentage ma heshaa sideese loo maamulaa dhaqaalahaas yani ka soo xirooda shirkadaha xildhibaan cabdicasiis dhahar xeerka afka Soomaaliga qodobadiisa 3aad iyo 7aad iyo 11aad oo ay ku qoraayeen in maartay dugsiyada hoose iyo jaamacadaha laga hirgeliyo sida ay noognahay waxbarashada dhamaanteed ama asaasiga ahaato ama jaamacadaha ahaatee dalkeena waa private wax si gaar ah loo leeyahay
dawladduna waxay samayn kartaa oo keliya shuruucda inay u soo bandhigto dabqideeduna waa wax waqti qaadanaya oo manhaj diyaarsanaa oo buugtiisii iyo systemkiisii iyo macallimiintiisii oo badankooda ajnabi u badan yihiin in mar kale la wada bedelo waa arrin dhaqaale badan ay ku baxayso in dhaqaale burbur iyadoo awalba dalku iska daala dhacayay lagu kordhiyo institutionka private-ka loo leeyahayna waxay u baahan tahay in waqti la siiyo oo waqti isla bedelaan waxyaabaha ugu sahlan oo hadda la sameeyo waxaa ka mid ah way hirgeli doonaan oo waa la wadaa qorshaheeda inay hirgalaan oo maalmaha ka mid ah waxyaabaha la soo celiyo xilliga awood loo helo in manaahijta iyo macallimiintuba isla jaan qaadaan oo af Soomaali manaahijtina lagu daabaco buugtii macallimiintuna macallimiin Soomaaliyeed oo af Soomaali ku hadlaya ka fargareeyaan hase ahaatee isticmaalka ama xafiisyada lagu isticmaalo ama qoraalada lagu isticmaalo ama waxa lagu qore dabagal bay wasaaraddu ku haysaa oo muxuu ahaay ama boorarka ganacsiga la qorayaa haato ama wareegtooyinka xafiisyada ka soo baxaya haato ama communicationka marka la isu yimaado lagu wada xiriiraya haato inay af Soomaali noqdaan wax badan baa ka fulay oo ka qabsoomay qadarin weyn bayna dadku siiyaan oo ay u helayeen inay hirgeliyaan oo waxa lagu wada macaamilayaa ee qoraalka ee wax la isku gaarsiinayo inuu af Soomaali noqdo mudane gudoomiye waxaan jeclaan lahaa su'aasha isla xildhibaan Dahar oo ahayd dalxiiska inaan ku xawilo haddaad iga ogolaato agaasimaha guud ku soo dhawo mudane agaasime si aad uga caawisho wasiirka inaad su'aasha ka jawaabto bismillahi rahmaani rahiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantiin mudane gudoomiye mudanayaal iyo mudane wasiir arrinta dalxiiska iyo dhaqangalkiisa ah oo xildhibaan Cabdicasiis isagoo weydiiyey xildhibaane xeerkaas uu dhaqan galay waana la bilaabay dalxiiskana shirkado baa hadda 4 shirkadood baa u diiwaan gashan oo Puntland degan way sameeyaan dalxiis geyn ajaanib iyo Soomaaliba ah meelaha ugu badan ay tagaana waxa ka mid ah bari buuraha Calmadow oo Sanaaga gobolka Nugaal waxay tagaan Eyl iyo meelo la mid ah waxay kaloo tagaan Mudug qaybo ka mid ah degmada Garaacad iyo meelo la mid ah si fiican buu u socdaa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala xeerkaas inuu dardar gelin doono arrinta dalxiiska xeerka isgaarsiinta khidmadaha ku qoran ma heshaan arrintaas way bixisaa muxuu ahaa isgaarsiintu way bixiyaan waa cashuur ku waajibtay waa cashuur ay bixiyaan waxayna gashaa dakhliga wasaaradda maaliyadda gashaa deedna waxay noqotaa sida wasiirka maaliyadda uu hore u sheegay hortiina ka sheegay awliyaadka yani sida loo kala mudan yahay oo kharashkii soo galay dakhligii soo galay maaliyaddu sida loo kala baahi badan yahay ay u bixiyaan systemkaas ay martaa annaga lacagna ma soo marto lacagna ma maamulo sidee loo maamulaa haddii aad heshaan waxaad ogtahay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada warfaafintu ma helaha dakhli hoosaad ma laha hay-ado mashaariic ay ka qaataan kuma xidhna dakhli meel kale kama soo galo waa mushaarka shaqaalaha iyo khidmadaha isgaarsiinta haddii la helo weeyaan oo ku xidhan baahida dakhliga yaalla dalka markaas iyo sida loo kala maamulayo haddayna soo gaadho waxa lagu maamulaa waxay leedahay sidaan xogta ugu horeysay ku sheegay shaqaale volunteer baa jira oo xirfadooda looga baahan yahay wasaaradda iyo warbaahinta labadaba waxaa jira muxuu ahaaye waardiyayaal waxaa jira adeega kale ee wasaaraddu ay qabanayso ama ha ahaato shidaaladaha kharashaadka ay gelayso ama shidaalada ha ahaato ama ha ahaato wixii kale oo maartay biyo iyo koronto iyo wixii kale kharash ay bixinayso waxaa lagu maamulaa baahida wasaaraddu ay leedahay